Hyderabad, magaalo caan ku ah isbitaalada casriga ah iyo daaweynta cudurrada halista ah, ayaa maanta noqotay halkii Soomaali badan ay u arki jireen rajada ugu dambeysa ee caafimaadkooda, balse rajadii ayaa mararka qaar isku beddesha murugo. Maalin kasta, isbitaalada magaalada waxaa soo buux dhaafiya bukaanno Soomaali ah, qaar wajahaya xanuuno aan la aqoon xilligii hore, qaar kalena la tacaalaya kansar heerkiisu sareeyo. Waxaa la dareemayaa in dhimashada Soomaalida ay ka dhalata cudurka kansarka ay si xooli ah ugu badan tahay dadka kale ee ajaanibga ah ee magaalada ku nool. Warbixintan waxaan ugu sheekan doonaa xaqiiqooyin aan indhahayga ku arkay, dad Soomaaliyeed oo aan waqti helin, daawo sax ah aan helin, daryeelna ku sugaye meel aysan ka filan karin ilaa ay noloshoodii ugu dambeysay ku waayeen dhul shisheeye. Magaalada Hyderabad ee dalka Hindiya ayaa maanta noqotay xarun caafimaad oo si joogto ah u tagaan boqolaal Soomaali ah kuwaasoo raadinaya daaweyn ka wanaagsan midda ay ka heli karaan gudaha Soomaaliya. Hase yeeshee, xog ururin aan sameeyay ayaa muujinaysa in isbitaalada ugu waaweyn ee magaalada ay si gaar ah ugu badan yihiin bukaanno Soomaali ah. Waxaa si gaar ah loo dareemayaa tirada sii kordhaysa ee Soomaalida la ildaran kansarka, kuwaasoo la xaqiijiyay in badankoodu ay yimaadaan iyaga oo aan si hore u ogaan cudurka kansarka, taasoo ka dhigaysa in daaweyntoodu ay noqoto mid adag oo qaali ah. Qaar badan ayaa ka tegaya nolol iyo hanti badan, halka qaarka kalena aysan gaari karin xilligii daaweynta saxda ah. Bukaanada Soomaaliyeed ee haatan lagu dabiibayo isbitaalada ku yaala magaalada Hyderabad ee dalka Hindiya, tiro-koobkii aynu hayno ayaa muujinaya in boqolkiiba 70 bukaanada Soomaaliyeed ee timaada Hyderabad ay u yimaadaan cudurro halis ah sida cudurka kansarka. Boqolkiiba 80 aysan hore u helin wax baaritaan sax ah, taasoo keentay in cudurku uu faafay ama uu gaaray marxaladii ama stage-kii ugu dambeysay. In tobanaan qof oo Soomaali ah ay ku dhinteen isbitaalada ama qoysaskooda ku laabteen ayaga oo cudurka la liita ama wax xal ah loo waayay. Dhanka kale, qabuuraha Hyderabad oo buuxsamay, qabuuraha Muslimiinta ee magaalada Hyderabad, gaar ahaan kuwa loogu talagalay dadka ajaanibiga ah ee Muslimiinta, waxaa buux dhaafiyay meydadka dad Soomaali ah oo u geeriyooday dhammaantood cudurro halis ah oo ay ka midka yihiin cudurka kansarka. Gabagabadii, kansarku ma kala aqoonsana qabiil, dal ama diin, balse waxa uu ku guuleystaa marka uu helo bulshada dayacan, dad aan garan calaamadiisa una arka isbitaalka meel la tago. Markii ay neeftu gabaabsoonto, dadka Soomaaliyeed ee ku dhintay Hyderabad qaarna ay ku aasan yihiin qabuuraha magaaladan, ma aysan dhiman oo keliya sababta kansarka, balse waxay u dhinteen daryeel la'aan, wacyigelin la'aan iyo dhaqaale la'aan. Iyo qaar ka mida dhalinyarada halkan joogta magaalada Hyderabad oo sida khaldan dadka wax ugu turjuma oo saameyn togan iyo mid qarsoon oo dadka qaar aanan ogeyn saameyn ku yeelata bukaanada halkan jooga.